soo dhawaada asxaabta. Maanta waxaan barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa 10 nin oo aadan aaminin inay adduunka ka jiraan ama ay joogaan. Lambarka 10aad waxaa ku jira Yu Xianwan. Ninkan ayaa si rasmi ah loogu magacaabay ninka adduunka ugu timo badan, asagoo galay buugga dhacdooyinka lagu diiwaangeliyo ee Guinness World Record sanadkii 2002. Ninkan ayaa waxaa ku dhacay xanuun dhif iyo naadir ah kaasoo daboolay 96% jirkiisa. Inkastoo hadda qaar ka mid ah jirkiisa sida xabadka iyo caloosha laga xiray iyadoo la adeegsanayo laser. Number 9. Chandra Bahadur Dengi. Chandra oo u dhashay dalka Nepal oo dhererkiisu yahay 54.7 sentimitir ayaa loo aqoonsan yahay bini'aadamkii ugu gaabnaa ee taariikhda, wuxuuna galay buugga World Guinness Record sanadkii 2012. Chandra wuxuu geeriyooday 5 Diseembar 2015 asagoo ku geeriyooday da'da 75 sano. Number 8. Arlinda de Sol. Ninkan oo u dhashay dalka Brazil ayaa 2014 muruqihiisa gacmaha ku duray daawo korisa murqaha weynaysana. Daawadan ayaa waxaa ku jirtay maadooyinka alcohol iyo oil, taasoo ka dhigtay isla markiiba inay murqihiisa u koraan si qayrul caadi ah. Arlinda ayaa taageero u ahaa Arnold Schwarzenegger, ninkaas oo ay Soomaalida u taqaan Commando. Dad badan ayaana u dhintay daawada markay isticmaaleen oo uu ka mid ahaa Arlindo saaxiibkiis. Number 7. Tom Stanford. Ninkan oo u dhashay dalka England ayaa jirkiisa lahayn wax dux ah ama xayr ah, wuxuuna ka mid yahay dad lagu qiyaaso inay yihiin 8 qof oo uu ku dhacay xanuunka loo yaqaan MDB, kaasoo ah inuusan qofku jirkiisa awoodin inuu kaydsado duxda. Tom waxaa khasab ku ah inuu wax cuno 15 daqiiqaba mar si uu u badbaado. Si kastaba ha ahaatee, xanuunkaas ma uusan ka hor istaagin noloshiisa caadiga ah, wuxuuna digrii ka haystaa lowga iyo luqadda Faransiiska, sidoo kale waa baaskiilyahan. Number 6. Leonardo Standing. Ninkan oo ah beeraley ku nool magaalo yar oo ku taala dalkaasi Ukraine ayaa la aaminsan yahay inuu yahay ninka ugu dheer dunida, waxaana lagu qiyaasaa dhererkiisa inuu yahay 8 feet iyo 4 inji, wuxuuna xirtaa kabo dhererkoodu yahay 27. Guinness oo ah buugga lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka ayaa damcay inay cabiraan, laakiin wuu ka xishooday. Guinness ayaana diiday inay ku daraan buuggooda. Number 5. Patrick Dwell. 53 sano jirkaan u dhashay dalka Mareykanka ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay ninka ugu culus dunida. Culayskiisa ayaa lagu sheegay inuu ka badan yahay 1000 kilogaram. Patrick ayaa ku jira noloshiisii ugu xumeyd, asagoo sariirtiisa iyo gurigiisa aan ka bixin 7 sano. Number 4. Gary Turner. Ninkan oo u dhashay dalka UK ayaa waxaa ku dhacay xanuun dhif ah kaasoo u oggolaaday in maqaarkiisa jiidmi karo in ka badan bini'aadamka kale. Number 3. Amo Hadid. Ninkan wax xanuun ama qabo maqaarkiisu, laakiin ninkan jirkiisa buusa dhaqan 60 sano. 8 sano jirkaan u dhashay dalka Iran ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay qofkii ugu wasakhda badan dunida. Ninkan ayaa sidoo kale maalintii caba 100 xabo oo sigaar ah. Number 2. Maxamed Kalena. Maxamed ayaa leh gacmaha ugu weyn dunida. Deriskiisa iyo dadka ka agdhow ayaa ku tilmaamay inuu yihiin gacmaha weynaantan habaar. 2000 ayaanu awoodin. Paul ayaa wuxuu awoodin in xaaladiisa laga qabto, laakiin markii la mariyay saxaafadda ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala Hindiya. Number 1. Paul Carson. Ninkan ayaa leh kalar buluug ah, waxaana sabab u ah silfar la damcay in lagu daweeyo